walaal horta lacagtaas xoogaa hadalhayn badan bay keentay anigana dhib uma arko maxaa yeelay dowladda Soomaaliya communitygeeda bulshadeeda contribution way siin kartaa taasuna macnaha ma aha mid lug ku leh siyaasad lug ku leh maaha mid muxuu ahaayey wax yeeli karta dowladaha ma aha dowladuhuna xiriir siyaasi ah ay leeyihiin oo iyaga dhexdooda ah lacagtaana waxa waaye dhalinyaro uu soo booqday tusay baahidii garoonka uu andhihiisa ku arkay garoonku inuu dayacan yahay oo wax ka dhiman yihiin lacag ugu deeqay ra'iisul wasaaruhu buu ahaa marka lacagtaas yani in ka badan baan helnay lacag marka la isku dardaro 200 iyo xoogaa waxa lagu dhisay guriga lagu dhisay 100 iyo xoogaa alaabta lagu diray hadda 200 muxuu inkaas ba u taala stage kaliya laga yaabaa inay 200 kun ka badan ku baxdo meesha muxuu ahaa la fariisanaya laga yaabaa inay 200 ka badan ku baxdo marka waa isleeyahay lacagtan waa contribution aad u fiican waay waa gacan wanaagsan waana mid aad iyo aad uga mahadcelinayno sababta timekeedina way ku timid xilli lacagtii hore kala go'day lacag kale oo badan oo aan ku dhameystirnay aan haysan galkacyo waxa la keenay ciidamo waxay bulshada ka dhex abuurtay walaac ku aadan markii ay soo baxday in guddigii lacagtaasi la wareegay ra'iisul wasaaraha kala wareegay laftirkooda la xiro marka sidee ku saameysay arrinta walaal horta arin lacagta ma qaadin lacagtu waxay ahayd sharci bay leedahay Cawaale Stadium wuxuu leeyahay account buu leeyahay accountkeedana saxiixayaal badan bay leeyihiin lacagta mid anaga gacantana la ka saaray ma ahayn account waa lagu soo shubay anigu account inta tagay xataa lacagtii muxuu ahaayay lacagtaas ma lagu soo diray ma dhihin laakiin kulli waxaan ogaaday hadii warqadii la keenay rasiidkii lagu soo diray inay ku jirto lacagtuna iskama soo baxday waxay ku soo baxaysaa waxa waaye marka contractorku uu shaqadii lagu la ballamay qabto laga control muxuu ahaayay 50% ama 30% hadba inta lagu heshiiyay uu sameeyo ayaa check loo qoraya checkgaasna dhowr qof baa saxiixaysa taas waa midaas mideeda kalena muxuu ahaayay waa maqlay in boos saxta dad badan oo horumarinta gobolka ka shaqeynayay in la xiray waa maqlay in muxuu ahaa gaalkacyo laftirkeeda iyo garowaba lagu xiray waxaasna anigu ma arko inay wax fiican tahay sababtoo ah bulshadu dawladdu wax walba ma sameyn karto dawladdu gacan bay bulshada uga baahan tahay bulshadu waxa la rabaa in ayaguna gacantooda dhinacooda ka sameeyaan marka xiriduna wanaag iyo wax fiican ma keento ciidamo la isku soo dirana de waa wax kale waaye marka waa run gaalkacyo tan iyo xalayt waxa ka jiray xoogaa muxuu ahaa abaabul badan dhalinyarado iyo dadkii ciidamada laftirkooda dawladda markay maqlaan yani horumarka idinku sameeynayeen baa dawladdu ka hortimid markay maqlaan dadkii horumarka u waday baa muxuu ahaay loo socdaa magaalada dhan waa wada abaabushay ciidan bay wada noqotay anuu xala waa baxay muxuu ahaay waxaan isku dayay inaan muxuu ahaay xaaladahaas oo dhan qaboojiyo maxaa yeelay Puntland uma baahna buuq uma baahna xarig uma baahna in muxuu ahaay ciidamadii muxuu ahaa howlaha kala hayay ay muxuu ahaay qas la geliyo provocation la sameeyo uma baahna marka anaguna waa ku dadaalaynaa waxyaabahaas intii aan dejin karna inaan dejino maxaa yeelay uma baahnin Puntland qasuga ma baahnin gaalkacyo qasuga ma baahnin horumar baan rabnaa in loo jeesto dadku inay shaqaystaan baa loo baahan yahay inay wax badan qabtaan baa loo baahan inay dawladda garab istaagaan baa loo baahan yahay marka dawladda laftirkeeda dadkii garab istaagi lahaa oo garab istaageeda u taagnaa inay maaragtay waswaas geliso ma fiicna waxaan leeyahay dadka kale oo xiran oo muxuu ahaay boos lagu xiray oo ayaga laftirkooda isxilqaamayaasha ah kuwa garow lagu xiray waxaan leeyahay dawladdu inay maaragtay hawshaas ay cafiskeeda fidiso oo ay dhamaystirto wax kale iyo talaabo kale oo muxuu khaldan aysan ku dhaqaaqin inaanu dhalinyarada muxuu u caqli celino oo aan u sheegno inaan waxba jirinin inaan u sheegno inay ka shaqeeyaan wixii horumarin iyo gobolka ay sii wadaan inaysan ka caajisin kana niyad jabinin yacni horumarka ay gobolka ku wadaan iyo Puntland oo dhan maxaa yeelay yacni dadka lama niyad jabiyo qofka waxa fiican wada waxa fiican in lagu sii abaal mariyo dadka waxaas ka shaqeynaya ama aan macnaha aan dhihi karno anigu hadda ma dhihi karo yacni waa amar ka soo baxay dawladda ma dhihi karo laakiin waxaan filayaa inay yihiin dad dawladda iyo shacabkeeda kala dilaya iyagana waxaan leenahay hadday dawladda xubno yihiin iyo haday yihiin kuwa kale wax magarad ah inta waxaan leeyahay dawladdu il dheer ha u yeelato macnaha in dhowr boqol oo ciidan ah oo dhalinyaro ah oo hubeysan intay soo baxaan la yiraahdo dadkii shaqada idin hayay baa muxuu ahaayay la xiraya yacni wax weyn weeyaan wax sahlan ma aha ugu dambeyntii adoo ii soo koobaya ma jiraan wax xiriir ah oo mas'uuliyiinta maamulka aad kala samaysay si xasarada gobolka ka taagan hadda loo dejiyo والله waan ka wada sameynay maamulka gobolkan kala hadlay waxaan ku niri de gobolka idinka gobol ah ma aha anigu inaan dejiyo gobolka ma aha anigu inaan tan suuq u baxo aan dhalinyaro
hubaysanaan iraahdo muxuu guryihiina ku noqda inaan askar muxuu hubaysanaan iraahdo xiriyihiina ku noqda inaan iraahdo dad badan oo kacsan oo leh sidee gobolkayga anaga dad ciidan loogu soo diri karaa sidee gobolkayga iyo dadkayga anaga noo shaqeynaya loo soo handadi karaa shacab dowladda laga rabay inay waxaa samayso laakiin anaga waxa weeyaan rabna inaan samayno sababtoo anaga og sida muxuu ahay ammaankeeda iyo hawshaan ay ku timid dowladda marka waxaan leeyahay xildhibaano badan baa nagala soo xiriiray xildhibaanada muxuu ahaa aad bay ugaga xumaayeen dad badan oo dowladda ka tirsan baa aad ugaga xumaa dad badan baa falalkan dhacaya u arka inay yihiin waxyaaba provocation oo dowladdu sameynayso dowladdan waxaa loo baahan yahay waxaa waaye iyadaa la rabaa inay anteeno dheeraato iyadaa la rabaa inay khaladka u dulqaadato iyadaa la rabaa wax kasta inay si deganaanshaha ku dhammayso haddii xataa qof la xirayo uu dembi leeyahay dee sharci iyo meelo loo maraa jira qofka warqad baa loo keenaa waxaa leeyahay dacwaa lagu qabaa qofkaba isagaa muxuu ahay tegaya isaga oo caadi ah buu tegaya oo ku daaco baxaya laakiin dee baabuur baa la qaadanayaa iyo dad baa lasoo xirxirayaa ma aha wax wanaagsan ma aha marka aniga idan waxaan leeyahay dowladda aad ha u ildheeraato waxyaabahaas ka fiirsato wixii khalad keeni karo dhaa ka fiirsato annaguna waxaan ku dadaalnaa 100% inaan dowladda la shaqeyno waxyaabahan oo dhan inaan soo afjarno ilaa idinkiis inaan wax dhibaataana dhicinin dadkaana muxuu ahaaye khaladka fahmayna oo muxuu ahaa khaladka runtii dareemayna inaanu sidii aan u dhammaystiri lahayn aan ku dadaalo insha allah